dadka had iyo jeer u kuur gala xagga duulimaadyada diyaaradaha moogta u kala gooshaya gobolada iyo wadamada ayaa focuska saarayay diyaaradaha ka kacaya Addis Ababa ee markaasi tegaya dhinaca iyo Eritrea waxaana la sheegayaa in tobanaan diyaaradood oo xamuul ah marka laga qaaday Addis Ababa oo la geeyay markaasi xamuulkaasi dhinaca iyo Asawa waa moogtahay magaalada militariga Eritrea degan yihiin halkaasi oo markaasi lagu daadgureeyay waxaana haatan la sheegaya marka sababta ay ciidanka Ethiopia iyo moogta hubka ay ugu qaadayaan Eritrea u geynayaan in ay tahay khidad ay soo degeen madaxda Eritrea iyo Ethiopia oo haatan doonaya in aan Eritrea marka farta lagu soo fiiqin oo la oran Eritrea kaliya soo weerartay Tigray iyagoo wadamada reer galbeedka iyo xulafada NATO ka cabsi qaba ayaa filim cusub ay u degeen iyo khidad baa la yiri marka waxa haatan la bilaabay in ciidamada Ethiopia la daadgureeyo oo la geeyo Eritrea oo dhinaca ay ka soo weerar galaan oo dhabarjabina ku soo sameeyaan Tigrayga oo dhinaca iyo badhama iyo markaasi Salambesa iyo dhulkaasi ay ka soo galaan iyadoo oo film loo sameynayo qoliyaha reer galbeedka oo la jahwareerinaya baa la yiri si aanay faartu u qaban marka Eritrea laakiin Eritrea waxa lagu eedeynaya ciidamadoodu safka hore ayay ku jiraan oo way ka garab dagaalamayaan kuwa Ethiopia laakiin aadii ku iman lahayd la oran Eritrea soo weerartay Tigray ama wadan kale ay Eritrea weerartay marka kiis ba qabanaya iyo marka qodob ka qabanaya ee ah wadan kale madax banaan bay weerareentaa ayay ka gabanaysaa Eritrea Ethiopia iyadii ba isdilaysay taagantay aanu shaqul kuma lihi saadarteed bay ciidamadan Ethiopia loo daadgureynaya oo Eritrea laga soo hawl gelinaya filinkaasi sameeyeen waana mid imka uu hirgalay baa la soo oran karaa ama ay ku guuleysteen oo Eritrea la iyo haata cadeyn lagu ma hayo ciidamadii Ethiopia ka soo galay dhinaca iyo moogtay badhama iyo Salambesa dirayskana xitaa waxa la sheegay dirayskii baa loo galiyay ciidamadii Eritrea ku Ethiopianka kala aad kala garo ma oran karaan marka xitaa hadii wax kasta laga duubo ciidamada Eritrea dagaalamaya dirayskii ciidanka Ethiopia u soo xidheen moogtay marka waxa haatan loo sameeyeen khidadaasi dhinaca kale qaramada midoobay golaha amaanka ayaa la doonayay in marka dood adag ay ka yeeshaan oo talabo adag laga qaado xukuumadda Ethiopia laakiinse bows baa la saaray khamiistii hore la doonayay la qabto waa isniinta la yiri suurtagal waday khamiistii isniinta la yiri isniintii hadana ma suurtagalin khamiistii kale berito la ayaa hadana la leeyahay ilaa haatan waxa la leeyahay no ayaa in kulanka la qabto ay la hortaagayeen ama Ethiopia la hortaagayeen wadamada Ethiopia oo taageero ka helaya Ruushka iyo China waxaanay ku doodayaan marka oo safiirka Ethiopia u fadhiya qaramada midoobay uu kaga dhex doodaya arrimaha Ethiopia inaan qaramada midoobay laga dhex doodi karin buu leeyahay Ethiopia wada madax banaan wada la gumaysta ma buu leeyahay marka waxa weeyaan arrimihii Ethiopia qaramada midoobay sidoo keentay bay ku doodayaanba waa internal matter bay ku doodayaan moogtay marka waxaan sheegayaan in Ethiopia afaareeda iyadu in xaleysato ayay markaasi xaq u leedahay marka wadamadii reer galbeedkii qaramadii midoobay oo loo dhex fadhiyaa golihii amaankii Ruushka iyo China oo sidii horeba isku hayaan reer galbeedka oo Ukraine iyo Taiwan iyo meelo badan la isku hayo ayaa nimankiiba u dhex fadhiya golaha ammaanka talaabo kasta isiraadan reer galbeedku qaada no bay leeyihiin ma soconayso gir bay marka ay taagantay marka reer galbeedku hadii ay doonayaan kaliya inay arinta Tigrayga iyagu wax ka qabtaan marka waa inay garab maraan qaramada midoobay bay noqonaysaa oo ay raadaan NATO meel kasto ay dhibaato ka jirto iyada xalinaysa marka ay iyagoo ismaqiiqaya toos u galaan Ethiopia marka sida Tigrayga hadii wax u qabanayaan saa ugu qabtaan taasi oo kaliya u banaan qaramada midoobay waa meel la wada leeyahay bay noqotay dad col ah waa meeshii wada jooga sidee go'aan ba loo gaari sidoodii horeba isku hayaanay marka in meesha inta u daayaan ay meel kala maraan oo moogtay ay toos NATO u farageliso oo reer galbeedka toos ugu farageliyaan arrinta Ethiopia mooyaane talaabo kale oo haatan suurtagal ay ma jirto bay leeyihiin dadka militariga markaasi u horgalaa iyo arrimaha caalamka haddaba si kasta ha ahaatee weeraradu haatan way sii xoogaysanayaan Ethiopia waxa ay wacad ku martay xukuumaddu ilaa ay nimanka gacanta ku soo dhigtay mooyaane Tigrayga TPLF tamaamulaysa moogtay gobolka Tigrayga ilaa nimankaas ay ku tilmaameen qaar madax adag oo si hadalka u dhigeen
ilaa ay soo qabtaan mooyaane inaanay waxba u suurtoobaynin waxaanay haatan la sheegay weerarka inuu yahay kii ugu xoogganaayay abid ay qaadaan markaa xukuumadda Ethiopia bal waxaa ka dhashay waynu eegi doonaa barnaamijkan intaasuu ku dhan yahay la soco mar walba dagaaladu waa kuwan waa kuwii ugu xoogganaa irbadda ka qaadina barnaamijkan intaasuu ku dhan yahay tan iyo kulanteena dambe nabadgelyo